السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال مركلة iyo muuqaalkeena ama casharkeena wali waxaan ku guda jirnay ama aasaaskiina basic marinay software loo yaqaan Adobe Illustrator CC 2025 ayaa marinay wali waxaan ku jirnaa ama casharkeena waxaan ku baranay maanta toolska aan baranay tusaalahan toolska waxyaalaha ugu muhiimsan ay kamid yihiin Photoshop markaan joogno inkastoo toolska qayb kamid aan soo barnay laakiin Illustrator markii joogto toolska muhiim waaye waxyaalaha inta badan uu sameyn doono waxa waaye toolskan si aad wax design qurux badan aad u sameysid waxa u baahan tahay toolska inaad baratid aan si fiican u baratid wax inta badan wax lagu sameyn doono waxa toolskan waa in ugu horeeyaan ka bilaabayno selection la dhahaa selection ayaan barnay selection muhiimada ama hadafka ama wax aan ka rabno ama aan ugu baahanahay ama faa'iido noo leeyahay maxay tahay tusaalahan shib yar aan tagayna shib yar aan soo qaadana halkaan aan keeni doono shibka yar markaan soo qaato waxaan u sameyn doonaa color aan u sameyn doonaa color markaan u sameeyo waxaan u baahanahay haddii aan rabo meel kale inaan kale ku siiyo ama rabo kan inaan weyneeyo ama inta inaan ka qabto aan u baahanahay kale aan siinaa meel kale ii taabmaayo wax kale daaqad usoo ii soo furmayso wax kale ii soo furmaayo saas darteed waxa u baahan tahay markasto oo aad wax sameysid inaad ka laaban kartid move tool ama selection inaad u laaban kartid sidoo kale selection wuxuu naga caawin karaa inaan qoraalkeena ama fontigeena ama shapekeena inaan ku jiidin karno hadba aan rabno meesha intaan ka qaadno aan gain karno up and down gain karno right and gain karno left and gain karno intaas oo naga caawina laba waxa nagu xigto waxa la direct selection tool ama selection waxa ku jiro midkan kale oo la direct selection tool iyo sidoo kale group selection tool labada ma ay ku kala bedelaan selection iyo direct selection tool ma ay ku kala bedelaan selection tool maadaama aan soo aragnay faa'iidadiisa haddana waxaan baranaynaa direct selection tool waxa la direct selection tool wuxuu ka caawinayaa angle-kan ama rectangle-kan ama shape-kan shaashadeeda ama artboard-ka ii yaalo haddii aan rabo hal dhinac ka mid ah inaan soo yareeyo inaan ka soo yareeyo tusaalahan haddii aan u baahdo selection jooga inaan yareeyo u baahnaa shape-kan selection-kan waa ku soo yareyn karaa hal asaga dhan isla yareyn karaa tusaalaha dhinac u baahan asaga dhan isla yareena laakiin direct selection tool higa caawina rounded inaan sameyn karo oo hal dhinac inaan soo jiido tusaalahan bal aan fiirino direct selection tool aan doorana marka doorto shape-ka dhinaca geeskan aan ka doorana geeska maadaama aan select gareeyo kadib waxaan sameyn karaa inta qabto oo falaarti markay saan isku bedesho inaan dhinacan saan soo jiifi karo oo sida aan rabo ka dhigi karo saana ka dhigi karaa adaaro saana ka dhigi karaa okay faa'iidaas ayuu noo leeyahay direct selection tool okay group selection tool muxuu yahay marka group selection tool faa'iidadiisu waxay tahay tusaalahan shape-kan hadda intii u soo waa yareena hortaan yareeno kana yareeyay kan maadaama inta yareeyay markaan rabo inaan badiyo maxaan sameyn jiray alt la qabanayay muuskii kadib inta dhigay haddana mid kale aan sameynaa soo ma haddana mid kale aan sameynaa tusaale ahaan group selection tool wuxuu iga caawinaa haddii aan rabo dhammaantood alaabtaan ama kuwa inta ii yaalo inaan qaadi karo ama aan jiido haddaan u baahana tusaale centerka yaalaan maadaama centerka ay yaalaan waxaan u baahanahay geeskan kale inaan geeyo maadaama aan u baahanahay waxaan sameynaa control selection aan sameynaa waa doorna markaad doorto inta imaana group aan ka dhigaa ayagana dhammaantood group waay maadaama group yihiin inta imaaw dooro markaad doorto waxaa sameynaysa inta imaaw kadib dooro markaad hadda waa doorto group ayagana fiiri waa qaadi kartaa intaa dhigi kartaa haddaana waa soo qaadi karaa intaa dhigi karaa dhammaantood ayagoo group aan wadaa marka group selection tool wuxuu ka caawinaa hal shape ama shape kala duwan inaad hal mar soo qaadi kartid ayagoo iswata hal mar inaad geyn kartid ama waxyaalo kala duwan ama shiibaada ama takasi aadan inaad soo qaadi kartid okay midkan kala fiirinayna tusaalahan magic tool maxaa marka kan waxaa la magaciisa magic tool la muuska da dulgeeyo magaciisa ay soo baay magic one ayaa ku qoran laakiin magaciisa sax waxaa la magic tool ayaa la tusaalahan wuxuu ka mid yahay toolisha mid ka mid ayuu ka mid tusaalahan shape-kan waxaa raba kalarka inaan ka bedelo kana kalarka bedela maadaama kalarka ka bedel kana kalarka raba inaan ka bedelo oo imaanaya asagan kalarkan ka bedela filkista waxaa samaysan kala ka bedel magic tool muxuu yahay magic tool wuxuu ka caawinaa laba shay isku kala in hal mar ku doorto tusaale aan fiirno hadda magic tool ay dooran kana doorna hal kamidaan doortay inta tagaya isbedel raba inaan ku sameeyo kalarkan ka bedela kalarka maadaama aan ka bedel labadan kii kale waa la bedel sababta maxaa waaye labadan isku kalar ay ahaayeen magic tool marka faa'iido u leeyahay waxa waaye laba shay isku kalar ah ayuu hal mar ku bedel tusaale laba shay waa labadaas shay baa rabtaa inaad kalar ka bedeshid oo kalar kale aad ka dhigtid inta tagaleed kana aad tagaleed oo bedel kana aad bedeleed hal mar as automatic labadoo kalar ku bedel kartaa okay midka ku xig waxa la lasso tool hadda dushiisa tagto arki doontaa magaciisa ku soo bixi doona lasso tool ayaa la dhahaa lasso tool wuxuu ka caawinaa waxyaalo kala duwan inaad hal mar select gareysid ama inaad doorto tusaale ahaan sambal yaraan ku siinaa lasso tool ay dooran waxaan u baahanahay kan iyo kan raba inaan kala ka bedelo hal kala inaan ka dhigaa raba hal daqiiqo ama hal second gudaheed inta tagaysa kaliya siinaysa saasa u jiidaysa soo mar soo laabo kan kor ige inta ka bilaabaysa saana u jiiday fiiri falaarta la raace inta imaanaysa haddaa rabtid kana ku darsan kartaa
ما فهمت سدها أنا كلا كان كبدل لا ستون مك سدها اللي يدورة ما دام سدها اللي يدورة أنت إيمانا كلا كان كبدل كرا كلا كرابو أيان كديك كراو كلا كان كبدل كرا هدي أو بعض سوى كلا حاسمين كلا في كلا كان أنت تكتب وحاسم كلا كبدل على كلا لما أنت سدها عن دوتي ولا يبدلها ما أغارق ما نقله وبهانا أما جالو كلا جديد كوبانا ما whatever waxaad ka dhig kalar ala kala kartid ayaa ka dhig kartaa okay kalarkeena ama turkan ka hooseeyo maxaa waaye turkan ka hooseeyo waxa la bintul muxuu na caawinaa tusaale ahaan inta imaanayna dhamaantoodan doorana dhamaanta markaad kadib daleeda leeyahay markaad daleeda inta imaanaya shiiba soo qaadan jir Soomaa marka shiib uma baahani bintul booskiisa isticmaalaya waxaan sameeyaa shiiba rabaa inaan sameeyo oo angle ama fargeesa rabaa inaan sameeyo shift yaa la qabana inta kalik siina haddana inta kalik siina haddana inta kalik siina haddana inta kalik siina haddana meesha ugu dambaysa geena waa kana shiibka la sameeyay haddaba baad iskiiba leedahay daartin iska tirtid waa kana shiiba la sameeyay shiibka maadaama la sameeyay daaro kala ka bedel kara saaro ka dhigi kara okay marka bintul ama bintulkan wuxuu ka caawinaa shiibka booskiisa inuu ku gali karo sida aadi wax u rabtid inaad wax u dhisaan gareyn kartid haddaad rectangle ama wax qalo ama shiib fargees wax la loo xirtid inaad ku sameyn kartid okay kan ku xiga maxaa waaye marka bintulkan wuxuu leeyahay qayb farac uu leeyahay qaybta fariid waxa waaye add anchor point tool iyo delete anchor point tool iyo anchor waxa la leeyahay point tool okay add anchor point tool maxay add anchor point tool wuxuu yahay hadda baranayna kan hadda wuxuu leeyahay shibkan wuxuu leeyahay afar gees uu leeyahay up and down kor labadan gees iyo labadan gees uu leeyahay afar gees uu leeyahay maadaama afar gees le mid sanada u baahan soo dirso korkaan ama hoos rabaa mid uu soo diro maadaama mid u baahanahay waxaan tagayaa add anchor point tool aan tagayaa كدي ميل بنانا كليك سينا ما دام كليك أسي وحالي سي بوينت كلا ليسي ما دام بوينت ليسي مي أنت إيمانا وحن سوق هذا دونا دايركت سيلكشن تولا سوق هذا بوينت اللي يسمي عن قبنا كرة وجديدة يا وحاول سمين كلا كرة وجديد كلا فايدة سولي مرك أد أنكر بوينت تول ما دام أنا نسمي أنكر بوينت تول كيف تكلا إيمانا دليت أنكر بوينت تول محو يا مرك دليت أنكر بوينت تول شغل كو قبنا وحاول أنكر بوينت عن أسميسي ayuu ka daleedayaa booskiisa ku celin doonto salaam balan fiirno dad anchor point tool soo qaadana kaliya ku siin doona waa la jari doona bal fiiri kaliya ku sii maxaa la sameeyay waa la jaray okay waxa sameeysa control z dib u soo celi maadaama dib loo soo celi anchor point tool muxuu yahay asagana maadaama la sameeyay add anchor point tool lagu sameeyay add anchor point ka sameeyay ayaa wuxuu ka saacidayaa anchor point-ga in ay isbedel ku sameyn karto salaam balan fiirino anchor point tool soo qaadanaya halkaan ay maanaya kadib maxaa sameeyna saar waxa uu jiri kara ama saan ka dhig ama sidaan ka dhig ama saan ka dhig ama sidaan ka dhig ku taala okay saarta ka dhig karta okay control z dib ugu soo laabo inta imaam marka takas waa taqaanina oo maleena waxaan jeclahay fahmaysiin takasga marka sambal ama tusaalaan ka bixinaa naftigiisa hadda waxa imaanaya shiifkana joogna Soomaa shiifkana waxaan sameeynaya waan dooranaa kalarka waxa leenahay fir kalar uma baahnaa laakiin stroke oo sameeynaa intaan stroke sameeyaa kan control z dib uu soo laabo kan iga dalid marabi shiib yaraan soo qaadana oo rectangle-kan ama bullet tool soo qaadana inta keena inta maadaama aan keenay inta dhiga inta maadaama aan dhigay color uu leeyahay Soomaa non fill color aan leeyahay colorka waan ka saari doona maadaama colorka ka saaray stroke uu sameyn doona stroke sila waxaan gaarsiin doona 5 ayaan gaarsiin doona kan amal aan rabo inaan sameeyo marka kan maadaama aan sameeyo qoraal aan rabo inaan la raaraaco maadaama qoraal aan u baahanahay inaan la raaraaco asagan uu leeyahay angale kala duwan uu leeyahay qoraalka qaabka loo raaraaci karnaa marka balan fiirino takasgaan imaanana dabcan takas tool aad waa taqaan laakiin waxa u baahanay tab on path tool in baramaan tab on path tool aan soo qaadana halka imaana stroke aan ku aadina stroke marka kadib kaligaan siina halka mar kaliya qoraalka maxaa la sameeyay waa lagu wareeji design marka tahay waxa laga yaabaa qof engineer inuu ku imaado ku dhaho nin guri noocaas ah inaa dhiso oo marka sample ama calaamad ii sameey gurigan ku sheega ama dhilkii sambaleysa 20 waaye sana 10 waaye waxa rabaa inaad ii sameysid oo shib ahaan inaad u sameyso qoraal inaad ku qorto bal qof rabaa inaad tuso ama engineer qof dhismo ayaa laga rabaa inuu ku imaado ama logooyinka circle markii la sameeynay ayaa la isticmaali doonaa halkaas la isticmaali doonaa marka dabcan waxaan rajaynaa kan dabcan vertical tool iyo vertical area tool iyo horizontal dabcan kuwan waa taqaaniin Photoshop ma ku soo aragtaan intaasaan ugu gudbinaa toolkeena lixaad maxaa marka ma toolkeena saddex inta soo barnay saddexna waa ku lixaad toddobaad aan ama sideed aan toolkeena sideed waa leen dabcan waa taqaanaa qaab noocan oo kale u sawir kartaa waxaan waxa ku soo aragteen ama toolkan area tool iyo spiral tool iyo rectangle tool guideline tool dhamaantood ama
Polar Guide tool dhamaantood waxaan maleynaa waxaan jeclahay inaan kusoo aragteen ama kusoo qaadateen Photoshop ayaa kusoo qaadateen dadka nala socday waa nala socda haddaadan weli arkin dib u laabo muuqaalada soo daawo YouTube-ka ka heli kartaa halkaas ka soo daawo okay inta imaana marka shape-kan aan rabaa inaan maanta sample ka sameeyno Photoshop markii la joogo ama Illustrator aan markii la joogo shape-ka inta badan waxa lagu sameeyaa waxba lagu alifaa wax cusub lagu sameeyaa saas darteed waxaan u baahanahay baawur rabaa inaan sameeyno ama bas oo kale inaan rabaa inaan alifo inaan sameeyo u baahanahay rectangle tool anagoo isticmaalayno inkastoo aan ku sameyn karno Photoshop haddana waxaan diidaynay maadaama aad tahay graphic designer bilow aad tahay inaan baska marka hore lagu soo saaro marka baska soo fuushid oo wax faantid kadibna waxyaalaan kale lagu baro saas darteed irbada tartiib in lagu geliyo saas darteed shay baan soo qaadanayna halkaan ay maanana sana ugu sawirayna shape maadaama aan sawray filka rabaa inaan ka saarno fil kala leeyahay kala kan ka saari doona stroke ay maana stroke maadaama ay maaday stroke waxa u baahan kalarna oo sameysto kalarka rabaa kali kara kadibna hoogaa siyaskiisa weynayna okay maadaama siyaska la ii weynayay waxa u baahan rectangle kale inaan soo qaato haddana inta imaado oo sidaan aan u sawiro rectangle kale sidaan aan u sawiro waxaan weynay rectangle aan sawiri inta rabaa baawar inaan ka soo saaro ama gaari aan bas inaan rabaa inaan ka soo saaro ugu horeyn waxaan soo qaadan direct selection tool soo qaadana direct selection tool wuxuu naga caawinayay hal angle ama hal point inuu noo soo jarayo ama rounded noo soo jaro marka inta imaana rounded aan soo jarana saana leena sanaaman ayaan sameeynaa maadaama inta sameeyay haddana marka waxa ku laaban direct selection tool ku laabana qaybtan kala doorana asigana xasan waxaan sameeynaa waa soo jaraya halkan saas ka dhigi doona okay maadaama labada dhinac aan ka soo jaray marka waxaan ku laabana shapeskan ku laabana illusion tool soo qaadana halkaan imaana anoo lahayo shift ayaa waxaan sameyn doona bahal yar oo shape yar aan soo sawiri doona kadib waxaan u sameyn doona color ayaan u sameyn doona dabcan colorkaas aan u sameeyay stroke waxaan ka dhigi doona nan ayaa leeyahay uma baahni stroke ayaa leeyahay ama cadaan hadda ka dhigayo uma baahni ayaa leeyahay okay maadaama kan aan sameynay markaan rabno shape inaan koobino waxa la sameyn jiray alt la qabanay alt la qabo muuska halkan keen lug waa meena tayarkii waa marka sidaan ku sameynay baawrkii inkasta oo design-kan sample tusaale aan ka bixinayni oo overview aan ka leeynay haddana inkasta oo dib aan ka sameyn doonaa oo waa isla arki doonaa okay aad u mahadsantihiin waxaan noo balanaynaa next video assalamu alaykum